ayay ku gudbi jireen doonta oo loogu gudbi jiray webiga dhankiisa kale ama gadiga kale. haddaba dadku waxay samaysteen kanaalo ama durdur si ay uga faa'iidaystaan webiga. waxay ku soo leexin jireen beertooda. dadka ku nool Soomaaliya 3 meelood markii loo dhigo meel ahaan waa beeraley. runtii wax soo saarka Soomaalida aad ayuu u weyn yahay. mooska ama muuska oo ah waxyaalaha ay Soomaalidu aadka u beeraan kuwooda ugu qiimaha weyn. dadkan ka shaqeynaya beeraha mooska ee ku yaal shabeellooyinka waa dad si adag u shaqeeya. mararka qaar waxaa dhacda inay 17 saacadood shaqeeyaan maalintii ayagoo qaadanaya tababaro sida loo abuuro beeraha iyo sida loo xanaaneeyo, weliba sida loo ogaado waqtiga uu mooska bislaaday. talyaaniga mar uu cilmi baaris sameeyey waxa uu sheegay mooska ugu macaan adduunka inuu yahay kan Soomaaliya. mooskan Soomaaliya laga soo saaro waxaa dhoofiya wadamo kala duwan, waxaase ugu badan waddanka Talyaaniga oo 80% isagaa dhoofiya, wuxuuna waddanka ku leeyahay shirkado badan oo dhoofin. dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saara shirkadaha Talyaaniga iyo Soomaalida waxay ahaayeen Soomaaliya oo aanan lahayn dekad caalami oo laga dhoofiyo mooska. danta waxay ku qasbi jirtay inay mooska ku qaadaan doomo yaryar si ay u gaadhsiiyaan maraakiibta waaweyn ee badda bartankeeda jooga, waayo muusku hadduuna talaajad helin wuu xumaanayaa ama halaabayaa. shirkadda ugu muhiimsan ee beeraha waddanka Soomaaliya waa tan uu sameeyey Luigi di Savoia. shirkaddan oo abuurta soona saarta waxay dhoofisaa qudaar aad u kala duwan. qudaarta oo ka mid ah sida babaayga, muuska, cambaha, canabka, liinta, bambeelmada, rumaanka iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin. shirkaddan aad arkaysaan waxaa ka shaqeeya 100 qof oo Talyaani ah iyo 5,000 oo Soomaali ah. waxyaalaha kale ee Soomaaliya soo saarto waxaa ugu badan suufka ama cudbiga, hadba kaad u taqaanaan, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya beerta cudbiga ama suufka ay u badan yihiin haween. warshadda gaar ahaan meesha suufka lagu kala bixbixiyo waxaa ka shaqeeya gabdho yaryar oo aad u qurqurxoon. shaqo kasta oo meesha ka socotana ayaga ayaa ka mas'uul ah, taasoo ku tusaysa dumarka Soomaaliyeed dhismaha waddanka inay qayb weyn ka qaateen. waddamada islaamka haddii loo fiiriyo haweenka Soomaaliyeed waa kuwa ugu madax bannaan ama ugu xorriyad weyn oo qabta shaqo kasta. shaqooyinka ay qabtaan dumarka Soomaaliyeed oo ah kala bixinta iyo habaynta suufka waa shaqooyinka ugu dhibka badan ama ugu adag ee la qabto, waayo waqti dheer ayay ku qaadataa safaynta suufka. warshadaha Talyaaniga uu ka dhisay waddanka Soomaaliya waxaa ka mid ah warshadda sonkorta. sidaad arkaysaanba shaqaalaha waxay ka shaqaynayaan beerihii qasabka. warshaddan oo laga dhisay tuulada la yiraahdo Duuka della Abruzzi waa gobolka